munaasabatan ballaaran ee xisbiga mucaaridka ee Wadani uu qabtay taageerayaal tiro badan oo ka soo jeeda beelaha Gabooye ee degan deegaanada ka tirsan gobolka Awdal. Munaasabadaasi habdhaca munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay hotelka Rays ee magaalada Boorama waxaana ka soo qayb galay musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen Maxamed Cali Aw Cabdi sidoo kale hoggaanka saraakiisha iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Taageerayaashan iyo mas'uuliyiintooda oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa cadeeyay inay guud ahaanba taageersan yihiin xisbiga Wadani ayna ku soo biireen ka mid noqoshada shacabka iyagu doonaya isbedelka waa sida ay hadalka u dhigeen Beelaha Gabooye ee halkan fadhida waxa kaloo jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo soo dhaweeyo dhalinyarada sida fiican u abaabulan ee xafladan runtii sida fiican soo abaabushay ee Beelaha Gabooye waxaan leeyahay runtii ku soo dhawaada xisbiga Wadani ku celcelinay eriyada hayso laga tirada badan yahay waayaso waxaas waxa keenay niyad-jab iyo kudhac waxaan u baahanahay noloshu halgan weeyaan hadiyad maaha inta maanta aynu la socono aynu dhisayno aynu taageerayno waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo ku-xigeenkiisa gobolkiisa ka soo jeeda bacda salaam aad baan idiin soo dhaweynayaa kii xisbiga ku jiray iyo kii maanta soo galay madaxweyne ku-xigeen halkan waxaa ugu diyaara 4 beelood beesha caadulqaate oo reer galab ah beesha tumaarood beesha muusagariyo beesha madhiban mid waa isbedelka dadku la doonay midna waxa weeye ka iyaga lagu hayo ee aan inteena kale ku hayo labada isbedel uu baahan yahay idinkana laydinka sugaya isbedelka mid waa sidaa sultaan salaama sheegay waxaan la qabnaa qaranka Somaliland waa isbedelka lagu badbaadinayo midna waa mid inaka inoo gaara marka waxaan idinku bishaareynaya war maanta waynu ka tagnay xuduudeeni waxaa muujiyey ilaahay raalli ku noqday xisbiga Wadani gobolada oo dhan wuxuu ku cadeeyay inaynan minority ahayn laakiin waxay idin sheegayaan xaaladda aan ku sugannahay maanta xaaladdaanka waan ogahay inaanu gali doono insha Allahu tacaala xaaladda aan ku sugannahay ee baaba mid ka wanaagsan baan gelnaa insha Allahu tacaala ugu dambeyntii munaasabadani waxaa ka hadlay musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Aw Cabdi waxaana guud ahaanba ugu baaqeen bulshada inay guud ahaanba u codkooda siiyaan xisbiga Wadani isbedelka aan sheegnaa maaha mid afka ah waa mid xisbiga ka dhaba waa mid naga uurka waxa ugu horeeya la dagaalamayaa waa cadaalad-darro dadkana cadaalad baasinta oo waxa ugu horeeya ee ilaahayna aw jecel ugu gubsadii oo la dheeradii nin waliba waa soo iska dhigow cidka la dheeradii ma jirto cidka gubsadii cid kale ma jirto dadkuna waa sameeyahay barnaamijka siyaasiga xisbiga waxa weeye in shacbigu xuquuq siman leeyahay oo aanay jirin beel la takooraya oo loo siman yahay shaqada oo loo siman yahay xilalka oo loo siman yahay wax kasta haddii ay ka dhigo kaasay ku wada shaqaynayaan Axmed Dariya Ciltire warbaahinta SBC magaalada Boorama.